waa maxay dagaal? tan iyo bilowgii dunida dagaaladu waxay ahaayeen kuwo dhacayay iyaga oo sabab badan lahaa. mar kasta oo waddamada dunida ay gaari waayaan heshiisyo nabadeed, waddooyin kale ayaa la qaadaa. nasiib daro, waddooyinkaasi kala duwan waxay sababaan colaad aad u daran oo lagu magacaabo dagaal, halkaasoo hoggaamiyaashoodu ay foodda isugu geliyaan militarigooda iyo calooshood u shaqaystayaalkooda, taas oo galaafata kumanaan ama malaayiin nafa ah. sababaha dagaalka. bal aan isdul taagno waxyaabaha kala duwan ee dagaalka sababa, aan milicsanno qaar ka mid ah tusaalooyinka taariikheed. imberiyalizamka ama siyaasadda gumaysiga ku dhisan. mid ka mid ah sababaha dagaal inuu dhaco waxaa ka mid ah marka uu dal rabo inuu ka faa'iidaysto dal kale khayraadkiisa dabiiciga ah. tusaale ahaan, gumaysiga ama imberiyaliyadda waa marka waddan horumaray uu qabsado ama uu gumaysto waddan aan horumarin, isagoo waddankaasi u qabsada sababa ganacsi ama inuu wax kala soo baxo darteed. tusaale ahaan, sannadkii 1898 Maraykanka wuxuu dagaal la galay Isbaanishka, wuxuuna ka maroorsaday Puerto Rico, Guam, Cuba iyo Philippines. imberiyaliyaddu waxay kala horseedi kartaa argoosi, middaasi oo mararka qaarkoodna waddankii la dhiig miirtay ama lagu gafeeraadiyaa ciqaab xun oo dagaal loo maro si uu xurriyad u helo. dagaalada dhulka. in dhul la lahaado ama la sheegto waa sababta ugu badan ee dagaalada ay ka dhashaan. mushkiladaha dhulfisiga waa xiisadda ugu col iyo cadaawadda badan ee mujtamaca adduunka kala irdaysay. waxay sababtaa inta badan colaad iyo naceeb aad u qoto dheeraata. inta badan xalinta dhibaatooyinkaasina waxay ku dambeeyaan in xabad fiiraha laysaga xashariyo. wayna adag tahay xalinta damaca dhulfisiga in wadaxaajood lagu dhammeeyo. tusaale ahaan, bal ka fikir dhammaan dagaaladii ka dhacay Ameerikada Waqooyi oo u dhexeeyay qabaa'iladii dhaladka ahaa ee Ameerika loogu yimid iyo reer Yurub iyo xitaa waddamadii Yurub nafsad ahaantooda. tusaale, dagaalkii 7 sano socday, Ingiriiska iyo Faransiiskuba labadooda waxay damaaciyeen dooxii webiga Ohio. haddana Ingiriiska iyo Isbaanishku waxay ku tartamayeen waqti dheer Florida. Ingiriiska ayaa ku guulaystay oo helay Florida iyo xukunkii dooxa webiga Ohio ilaa iyo Canada. waxaan tusaale kale u soo qaadan karnaa dagaaladii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. dagaalkii dhex maray labadaasi dal ciriqiisu wuxuu ahaa dhul. Itoobiya oo og inay haysato dhul Soomaaliyeed ayaa isku soo mutaxday dagaal harcad ah, wixiise ka raacay taariikhda waa ay qortay inkastoo ay garab heshay. khayraadka. helitaanka khayraadka ayaa isagana horseedi kara dagaal. tusaale ahaan, dagaalkii koowaad adduunka kadib, Jabaan waxay casriyeysay militarigii waddankeeda, middaasi oo baahideeda ku xirnayd ama ku tiirsanayd oo helitaanka ilo saliideed oo cusub oo dalkeeda jasiiradda ah. Jabaan waxay kaloo jeclayd dhulbalaarsi si ay xuduudkeeda u dejiso dadkeeda tiri ahaan faraha ka sii baxayay xilligaasi. sannadihii 1930 ilaa 40kiina, Jabaan waxay qabsatay Manchuria oo Shiinaha ka tirsan, Franja Indochina oo Vietnam ah iyo Philippines. cadaawaddaasi waxay soo dadejisay in Maraykanku uu ku soo rogo cunaqabatayn ay ku jirto xadidaadda in Jabaan uu helo saliidda dalkaasi Maraykanka. Jabaan iyada oo ka falcelinaysa arrinkaasi waxay weerar ku qaaday saldhiggii Pearl Harbor ee Maraykanku uu ku lahaa Hawaii Diseembar 1941. taasina waxay si daran u qunjisay ama ay u xanuunjisay Maraykanka, isagoo si cada u soo galay dagaalkii lana saftay isbahaysigii ka soo horjeeday dalkaasi Jabaan. waddaniyaddu ama kufaanidda aadka u saraysa ah in qofka uu leeyahay dal iyo dhaqan ayaa qayb ka ah in dagaal uu dhaco. waxay ifafaalo u noqotay bilowgii dagaalkii koowaad adduunka. markaad eegtana, Yurub iyo Bariga Dhexe ayaa u muuqday kuwo aad u kala duwanaa. sannadkii 1914 Austria, Hungary, boqortooyadii Cuthmaaniyiinta iyo xitaa Jarmalka waxay lahaayeen xuduudo kala duwan oo dhammaantood ay degan yihiin qowmiyado ama dad ka soo kala jeeda Islaafiska iyo Turkiga, kuwaas oo dhammaantood doonayay inay helaan madax bannaani. qowmiyadahaasi waxay isku dayeen inay ka go'aan dalweynahoodii xoogga badnaa ay ka soo jeedeen. taasina waxay horseeday bilowgii dagaalkii ugu weynaa adduunka weligii soo mara. dagaalkaasi oo ku fiday Yurub oo dhan, Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid ah Aasiya, isagoo ugu dambayn gaaray dalkaasi Maraykanka, wuxuuna dagaalkaasi galaaftay malaayiin dad ah. dagaalada diinta. arrimaha la xiriira diinta waxay sababaan dagaalo aad u qaraar. sannadihii 1600 miilaadiga,
boqortooyadii Roomanka waxay lahayd imaarado haystay Kaatooliga, kuwaas oo daacad u ahaa imbaradorkii Roomanka. si kastaba ha ahaatee waxaa Yurub oo dhan ka soo baxay faracyo kale oo diinta Kirishtaanka ah, taas oo kooxo u soo jiidatay wixii raacay oo kana hor yimid madhabkii Kaatooliga ahaa. taasina waxay sababtay in madhabkii Borotestanka iyo Kaatooliga uu dhex maro dagaalkii 30 sano socday ilaa iyo 1648. ugu dambeyntii waxaa laga gaaray heshiiskii la magac baxay heshiiskii Westphalia. waxaad halkaasi ka garan kartaa in dagaal diimeedka uu ka kulul yahay kuwa kale ee la isku haysto dhulka iyo xuriyadda. waxaase muhiim ah inaad ogaato dagaalada dariiqooyinka diimaha isku tirtirayaan inuu saldhigiisu yahay kala xoogsiga saldanadda, iyadoo la isugu soo gambanayo haybadda diinta. cadaawadda ka dhalata dagaaladaasina waa kuwa weligood sii jiraya oo aanan xal laga gaarayn.